السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا حوك سده هالكان إن كلا الله أنا وحوك سده حمادي دو فشيال وحي الناس السعودية تحني نوها برامج كي لما قاعد بحي بدبادة قيسك قارهان وحنكو جذو جرني موضوعي هو ينكر ما أنتنا موضوع نوح دهرية هي أما وكو أدنية هي هو يضع لورصون سيدا نسلوقنا هاي هو يضع ومرايدة لقد دعوة قيس كذا المهدي ينن كذا islaanta wanaagsan ee dhowrsoon ee ehlu sharafka ah ee ehlu diinka waxa laga gartaa dhaqanka ninkeeda iyo ilmaheeda marka waxa cadaanayso wixii tusaale ee ka muuqdo ilmahaas iyo ninkeeda ayay ayaduna tahay oo halka maarata qoyska wuxuu yahay ayaa looga cabir qaadanaya sidaan kor ku soo xusnayba hooyo kasta ama gabar kasta wixii muuqaal he marka ayada ka muuqdo ayaa lagu macneeyaa oo ujeedkeedu uu yahay waxa ayadu ka muuqdo ayuu dhaqankeedu yahay haday tahay gabar xijaaban ee alla ka cabsi ka muuqdo ee ma garanaysaa asturan waxay ka dhigan tahay inay tahay qof wanaagsan ehlu sharaf ehlu diin ah hadii ay tahay caariyad gabar madax qaawan dirac qafiif ah qabta ee ma garanaysaa ayada dhan wixii ilaahay ugu talagalay ka baydhay xaqiiqatan waxa weeyaan soo saari mayso ilmasan ee tarbiyada maartay diinta haysta ee wanaagsan ee bulshada ka dhex muuqdo marnaba soo saari mayso marka koowaad halkan waxaan fariin kaga dirayaa gabar kasta ee xijaabkeeda tuurtay ee ku caasiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala xijaabku dhaqan ma ahan ee waxa weeyaan diin waliba waajib ah inay xijaabkeeda u laabato madaxeeda ay asturto dharka qafiifka ay qabto ee had iyo jeer ku dadaasho in jirkeeda ay asturto laana jirka gabadha dhamaantii waa cawro ilaa maarta kafaynka iyo wajiga waxaan ka ahayn nin kastaana waxaan u dardaarmayaa inuu u hiliyo ilmihiisa lianna waxa la yiri ilmahaaga intii tooga ku jiraan ay tala kaaga baahan yihiin markaad u doorto hooyo wanaagsan ilmahaaguna waxay noqonayaan ilmo wanaagsan bulshadana ka soo dhex muuqdo biri kamaalna adiga ku anfaco hooyadoodna anfaco gabar kastaana waxaan leeyahay adiguna sidoo kale ilmahaaga waa inaad u doortaa aabo wanaagsan ee akhlaaq iyo diin u saaxiib ah oo sharafkiisa maartay aan cunin ee aan ku dheelin ee ah qof bulshada ka dhex muuqdo adiguna taa waxay ka saacidaysaa magacaaga inuu kor u kaco masabkaagana uu wanaagsanaado ilmahaagana ay noqdaan kuwa bulshada ka dhex muuqdo maadaama hooyo wanaagsan aad tahay ilmahaaguna aabo wanaagsan waa inaad u raadisaa waxa jirtay oraahda haysay saddex ninna maalin ma gaartid ninna sanad ma gaartid ninna waligaaba ma gaartid ninka la yiri maalin ma gaartid waa ninka ka faras fiican ama ka geedid fiican marka safar wada gashaan meel aad aadaan uu ku dhaafayaa uu ka tagayaa maalinkaasna waxa weeyaan adigu inta safarka ku sii tahay asagu uu sii nasanaya markii intuu meeshii u baahnaa uu tagay ninka aad sanad gaarayna waa ninka ka daaqsi fiican ee xooluhu markay abaar timaado abaarta xoolihiisa ka badbaadsada ee meeshii daaq la geysto oo xooluhu u dararaan ama ay u soo baxaan ma garanaysaa jar iyo xoolo lacag u gooyo ee suuqa wax ka gooyo markii uu daaqsado adiguna abaarta ay ka leefto xoolihii ay ka dhamayso ninkaasna sanad ma gaar sidoo kale waxa la yiri ninnas waligaaba ma gaartid ninkaada waliga gaareen waa ninka kaamir u fiican ninka asaga ah waliga gaari maysid laana way kaabaysaa ilmihii tarbiyanaysaa asagay dhaqaaleynaysaa wax walba oo sharaf iyo wanaag u saaxiib ay maartay kula talinaysaa ninka hadiye jeer waxay ku talagelaysaa inanta wanaagsan in ay ninka sare u qaado oo magaciisa iyo masabkiisa ay korgeyso ee ragga ila tartansiisa asaagiis ah hadaba halka waxa ka cad nin kasta inuu ku dadaalo sidii uu ku guursan lahaa gabar wanaagsan gabar kastaana inay maartay ku dadaasho sidii ay ku heli lahayd nin wanaagsan laana waxaan maartay meesha ka askumayno markay wiil iyo gabar isguursadaan halka maxaa ka soo baxayo bulsho weyn bulshada markii waxa lagu badbaadin karaa inay yihiin laba isku dhowrsoon ee ma garanaysaa midba midka kale waxa uu ku dooranayo yaqaano ama uu ku soo doortay halka waxa ka dhalanayso wanaag iyo sharaf fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelka waa channelkeeni subscribe like share and comment inta way iskugu daro commentiga wuxuu naga saacidayaa in maaragtay wixii adinku aad noo aragtaan inaad noogu sheegtaan wixii maaragtay aan ku khaldanahay aad noogu sheegtaan fadlan hanaga ilaawin hadii aad iga daawanayso Facebook qaybta sare title-ka uu ku xusan ayaa linki ku dhigaya halkaas aad ka tixraacaysaa si YouTube-ka aad u tagto hadii aad toos noo daawanaysana ama hore aad noola soo joogtana waan kaaga mahadcelinayna daawashada aan daawanayso waxaan idin kaga tagayaa wassalaamu calaykum ورحمة الله
wabarakaatu.